soo dhawaada annaga wax aragnay soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiin kulligiin dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo halkan igala socda aad baan idin salaamayaa kulligiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada live-ka haddaan idin ka hor dhaco oon rabo inaan idin wax yar idin ka taabto sababta aan live-ka u soo galay iyo live-ku wuxuu ku saabsan yahay qalma jiraa hala share gareeyo 200 300 ka yar wallahi ma rabo inaan caawa aan programkayga ka yar inaan uga hadlo iyo ka badan mooyaan ma doonayo waayo aad buu ma aragtay runtii waa wax u baahan in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ugu xidhan kulligood inay si gaar ah ay u fahmaan bixirta ma yar tagnaan markii isku xirmanto waa bixir raba ama ay sugno waxa hawl yar ku jira live ku jira marka kulligii waxaan ka codsanay inaad si share gareysaan islaanta iyo dadka iga daayo wicitaanka kaaradan ku dhacday waxaan rabaa inaan live-kaygu toos u guda galo oon idin faahfaahiyo sababta aan live-ka u soo galay waxa igu kalifay inaan maanta live-kan soo galo iyo sidee wax u dhaceen marka koobaad horta live-kan wuxuu ku saabsan yahay naagtan wasiiradan lagu magacaabo wasiirada dhalinyarada isboorta Khadiija ma fahmaysaa عدة وسيرو تاي وسيرو تموت أنا وسير نمد وحبي جماعة قصيان لكن وأنا كهذا قصب صدق إلى دقنت صي إلى دقنت وأنا كهذا وح أي قصير اللي معنا دي وزير ده وحصلنا فوق وحبي جماعة جلانية أيضا أطلع موقته عدة وسيرو تاي عدة حلوان تاي I don't care أنا وحصل وح أي جل ملهن هلا شركة لايف كان إنه جاران على وليبه وحويان سوى حد عن وحسيلة دكتين وح مالمها السعودي قبل قابو أما حفلات كصافسن لأن يرد الصوماليات شروينا الله قبني أو أكوا كليمان دمان قبل هذا يوم حال ده هي عاصمة الجديدة هذا واسطة هذا الكود تقول لي أنا وده ما قرني حفلة ده اسمها السعودي كنتي حفلة دمان تاي هيد ولي حتى حفلة ده ما أنا دماني هلا شركة راي سيدا واحد عن مركب أنا ودكتين قف نزولة أفاريه سمقلو لكن وحديث قفك وحالي هدوكو قنينو ولا قنينة هدو دكتكو عن كاقوي عن ولا قوي صمين هلا شير قرايو سداس وين سلانتاس ما انت انا حفلة داس انا ما ظهرت مرهبين وقت حل الدنبا انا اسكو هردو قرقي جوال وحايل الصهد انك الله انا معنى لا وحايل الصهد وحول انه انا وانا مقانهاي ميل بانشراء وحانو باهانهاي كوحدي هبلد وبري بان ماشي لغو هستا اناد ماشي تكتو هاوشان ادسيقا وطو سينا فردامس وايهان كور ولا واي سيدان سمي وان صباحي ماشي هوتيلكي وانا مد انت عند ذلك كروان دالي داني يرادي ددكي ماشي غودي وانا فسخني ساسن غودي ku galay hala share garay live kan
فهمت ما في عنا ضدك إن لك رسارة ضدك إن لو حيو نقف إن سجار الله حمايو سجار الله حي مو ناكسنا ناكتس وحيد ناقو السيرة ده ناجح اللي بانضو حسانات لأبيه تمام ويا حفلة ديوان تكني ماشي تكني كذا فرصة مدن جوجي هاوشي ما حكى فرصة مني قف كستوس شركة جوجا مخراتي وكاها لأن يرد ماشي جوجت مخراتي كاين دتك وعدوبي مخراتي كاين إن ماشي فرصة مدن جوجي وأنا حفلة ده وحكاها جاجني مخراتي والله جوضاها دتكي والله جاي أبغى دتك حفلة ده سقوب جوك هذا إن هذا اللايف كان داونا يان قف كستو أنا قاعد سد على عير راسن oo idii dhahay cabdi waad khaldan tahay waxaanad ka hadlaysana waa khaldana dib uu ka soo ogaan karaa arintaana dib uu baari karaa hash alla share gareey live-ka anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay meeshaas waxaan suugaanahay oo nagu soo talagalay ma insan jirin suugaantaas dib u dhiska dalka iyo dhalinyarada kaalintooda ay ka qayb qaadan lahaayeen baan meesha u imid oo rabeen aan uga qayb qaato suugaantayda maxaa dhahay shuruud la'aan bidiin shuruud sidaas darteed baan u imid aniga xafladii waan imid نمعن هلا بنانكو جوجي وحول والله كواحد صوت يارنا أنت كواحد إيمانيان عن تدي إسحلقان وتقول تلقي شي برنامج السيقات أنا كنا بنان كان مارتي ضدك صوت يارنيا سيدا سنسكوجين هاوش سيدا سهي هلا شرقري الله يفكان هلا شرقري ساسا سنسكوجين قدها سيدي بيهاي وحان حراضي تضبط ساعة ظهر نمو أيان ماشي قدها الجلي إلا وقت كان لها اللي لا تندق كار مركب محصود دقي waxaan joogay hoolkan ku sugnaa xafladda ayaan wax ka gaajinay waxa soo galay barnaamijkii wasla soo socotay hawshii soo socotay madaxda qaranka soo gashay waxa joogay ra'iisul wasaaraha waxa joogay golihiisa wasiirada qayb kamid ah xildhibaanada joogay laba taako sameeynan jirin aniga state kan taagnaa farsamada ayaa wax ka gaajinay dad badan oo idinkeedan kamid ah waa laga yaabaa live-ka inay daawanayeen barnaamijka xafladda meesha ka socotay dad idinkeedan kamid ah waxa laga yaabaa inay daawanayeen oo ay makhraati ka noqon doonaan oo meesha joogeen مالو فيرسد هذا الكاس والله جاي يابا ماشى إني جوجين إني داونين حفلة والله جاي يابا ملاحظ ويساق الشيء حفلة دي ماشي وي بلعبتي قلدي برنامج كده دهين السوي هلن مركي هلن ويبدو حدا مركب برنامج كده دهين تعنا منه وانكو صود ويننا واي هاي بانكور أيضا حاجة سفردي ماشي دي سكفردي وزارة اللي فردي قف كست مع رئيس وزراء لفت الكيس حسن على خير مخراتبه كان ماشي فدي انا ما قرناي هبرتن الدلمنس انه لوغا ان كان انا ما اقانو runta fiican moogtay laakiin wuu la fadhiyay meeshu fadhiyay wuuna u jeeday marka intii soo kacday aad tiri ay dhalinyarada ugu soo dhaweyn leeska inta soo qabsatay bay tiri habaladu waa bari markaas gabadhi barnaamijka taadiinaysa markay tiri cabdi baan ku soo dhaweynayaa oo inoo dhaantaynay maadaama idin cajisteen live-ka la si share gareey saaxiibada anigu waxaan rabaa inaan si afeef idinku sheego anigu cid gaar ah lama dagaashani qof aan hadda mucaaradsanay ma jirto cid aan wax u dhimay ma jirto laakiin habartaa sida iyo dulmiday iyo sida wax u dhicin bas baan rabaa inaan idin sheego wax kale ma rabaa anigu waayo idinkan in la idin dulmiyo ma jeclidin ilmihiina in la dulmiyo ma jeclidin qof dhalinyaro oo fan iyo suugaan ku dhex jira oo suugaan soo diyaarsaday waad ogtihiin markii hees la diyaarinay rafaadka loo marayo برنامجكان يسحلقان يبرنامجكان كذا تقولها نبض يسدحقلك بالشدة بان دلالكم بحيي أو نضفرون هبين نوصل جد إنن سوغان تيدا وقيب قاط السوغان تيدا وان قيب كان نقطة برنامج وان امد مركا اللي يقول صدق ويلا إيه ياري والله إيه ياري الربينا برنامج كان قيب كقاط والله إيه ياري ما اللي ساقف تترزاره هناك فدي مركا سيتري هبلده waa bari haloo yeero هبلده waa bari haloo yeero tiri waayahay baa leeyahay gabdhi barnaamijka daadihiiniyo qof soo dibto xadiri ninkaas hal kansal garay shibaan idhi mikrofoonka waan haystay madaxdana laba talaabo iimin jirin hal talaabo ya yani islaantaas wasiirada aniga fiiri anigu ma raba hadda inaan dagaalka iyo maxal xanaaq yahay inay waxyaabaha qaar afkay ka soo baxaan waxaan isku dayaa ilaa xad inaan isxadido anigu ma ihi laangab ma fahamtay dadka la tokoorana ma ihi anigu ayada hadday dadka la tokoora ka dhalatay ma ihi anigu dadkaas runta u sheegay moogta Khadiija Diiriye anigu laan dheeraanahay runta u sheegay fanaanimada marka laga soo tago dad baan ka dhashay nin dadkiisu ay tirada ka badan yihiin runta fiican moogtay ma ihi dadka laga tirada badan yahay haddaan rabaa in iyada maqasho ayada hadday tahay dadka laga tiri badan la abuse gareeyo
ما أنا ومي دتكاس ده رنتان وشيء هبرتان حنا رنتان وشيء خديجة ديري ويسوي استاكتي مركز سوي استاكتي وحاتي الاستيت كي يقدق حنقول هبر محا خلدان يقدق بيت الاستيت كي ماشي حاجة خلدني هبر روحانا فنان صوماليات ما هاي ماشي انت تعطنا قرآن لقوا ما آخرنا ولا لقوا هسيا إلهي باي أركو عن رفت ده أحسن كنا انتينا نبين شيء إلهي باي أركو أم خراتك وحنقول هبر معاني دي فنان صوماليات ما هاي سوقان ما نصاد ديار صدي وحارب السوقان ترى أنا وقف قات برنامج سوى حجران حاجات سيقلت عشان تاي كدق بيت المش والإلهي بأن نكون دار شيء إلهي بأن نكون دار شيء هذا الكي صفي عن الله حسن على خير وفدي ضدك يسجل للسعودة دم ويفدي المش وي وذا تشوجين مقارنة سان ضدك كان داقد يقفل سنة تلافك أنا ويقدم يربح الله الشرق رأي ولا سوري ولا أنا قفك وقلدي أوكي سوري واي ولا فعلا جت ورا هلا شير قريو waxaan ku ori misay wax u jiraan nimcaan hilla abaan u yeedhay uu joogay meesha uu joogay ninkii meesha igu yeedhan asagu waan u yeedhay waxaan ku ori nimcaan oo kaalay maxaa khaldan walaalow islaantan xagee kala tahay ana ila dagaashan tahay ana war hooya war xagee kala dagaashan tahay naagta waa bis la socoteeni xagee kala dagaashan tahay ku ori xagee kala dagaashan tahay ninkii yeedhay adigu wahay ما حقي كلا دقاشنت عادي يدو وصلوكتين ما حد سيجو يريس حبرتن طلعت وسيرس كشة قد ده يصدق أو محل كريديزم كسمينسو أو ضدك كلا تكوريسه ما حد وقعد محاك خلطان ما نقول أنا سلانتن ور إلى هاي أمريكي سبضنا كاجر ما نودن مياه محاك خلطان ما نقول خديجة ديري محاس أنا فنان بان هاي waxaan dadkan heesayeen waa fanaane maxaa khaldan waan u sheegay macnaheedu 10 jeer baan u sheegan kuuri islaantan wax khaldan bay sameynaysaa agaasimi fankii hobalada waa bir adiga ah haddaad tuuga loogan habartan tadaata ana meel iska saarayo ma fahamtay waad ogtiin anigu suugaantayda ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii codsatay oo meesha jooga maqraatiba ka yihiin ugu yaraan 200 oo dhalinyarada meesha fadhiday oo dhammaan gobolada ka yimid fankaygina xiiseynay aan ay taageeray suugaanteedana la dhacsanaa oo rabaan inay maxal lahay suugaanteeda ay maxal lahay aan la wadaago la share garay anyway islaantii sidaas bay sameysay nimayahoon ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed dadka daawan waxa uu sheegaya anigu live inaan ka hadlo mar hore aan joojiyo runta inay sheegaya qof shakhsi aan inaan personal attack ku sameeyo waan joojiyay mar hore aan joojiyay waxa soo dhan ilaahay bay igoog inaan live soo galo oo barnaamij noocan oo dambe aan ka hadlo ama qof wax ka sheego waan joojiyay ilaahay way arka laakiin ma saxba ilaahay baan ku dhaarshay 100 baa daawanaya ma saxba inay islaantaas weyn oo wasiirada oo xasaanada leh xildhibaanada inay saas ila dhaqanto ma saxba waanu sheegay dad la taliyaasha ra'iisul wasaaraha waanu sheegay dadka miidiyihiisa halwadanadan aanu sheegay waxaan ku iri islaantan sidan bay la dhaqmaysaa waxa la habartan makhaayada ayadaa wadata ayadaa shidanaysa waxba kama qaban kara cabdiyo barnaamijka sug baa la yiri barnaamijka anigu waxaan ku iri ma sugayo taleefanadeedan qaadanaya waan iska baxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma waxaan joognaa nin baa wuxuu soo qoray mar raba qabiilana sheegay hebelnimo saasay islaanta kula dagaashan tahay war waxaan ku iraanu fanaan qaran may ma fahamti xamar hadii la yiraahdan aniga minority kamay majority baan kaay runtan ku sheegayaa intaas oo sanaan joogay ma fahmaysaa dagaal haday noqotana cid dagaal wax iga qaadi karta ma lahan hadday dagaal iyo qoriyo dil noqotana dad ayada kala dheereysan oo maxaa la daba jaxiyo gawaarida u saariyiin baa waxba iga tari waayay maxay iga taraysaa habartan xunta maxay iga tari ishaq maxay khadiija diirad aniga taraysaa maxay sigala dagaal hadda hay soo wicina hadda koor SYL baad markii saano kale igu sameynaysa khadiija diiri anagoo la ii yeedhay casuumay ay hor istaagtay maxaan ka wataa ishaq waxaan ka wato waxba kama wataan uu ميكروفونك أنا كل دقة وان محله وان سمين كري ميكروفونك قعنتن كوي وان سمين كري وحول بوان سمين كري لكن احترامي أنا أيضا ماشان كل الضوضة يا
inaan ayada kula doodo ma rabin ma joogna xilligii madaxda qaranku ay fanaaniinta kala saarayeen ma joogna xilligaas waa laga soo gudbay haddii been la isku sheegayna hala sheego dee been haddii la isku sheegay hana loo sheego been haddii la isku sheegayo habartan oo dayuusada waan caynayaa xaq baan u leeyahay inaan caayo because naagtan way dulmiday wiil yaroo dhali kar nima hadda wuxuu soo qorayay waa naag ana way dhali kartaa laba jibaar way dhali kartaa soo ma way dhali kartaa dee marka aniga iyada yaa la rabay inuu weynaado dee ayadaa la rabay inay maxaa dhahay iga weynaato ixtiraamto nin dhalinyaro oo fanaan oo waxaan ahay maxaa dhahay hadda anigu ma joogo waqtigii mikrofoonka laygu ciilay anigu caan baana iga badan intay taqaana haddaan meelo iyada joogto keesi waayna dee meelo ka badan baan ka heesay 54 dawladood baan ka hor heesay oon ka hor dhaanteeyey haddii yacni meel stage meesha ugu sarreysa level hadday jirto waan gaadhay yacni laakiin anigu suugaantayda iyo waxaan rabo inaan ku cabiro dad halbeegayga ama maxaa dhahay halbeega aan rabo suugaan horumarka inaan ku cabiro dee xaq baan u leeyahay inaan dhalinyarada soomaaliyeed inaan waaniyo oon suugaanta soomaaliyeed la wadaaga xaq baan u leeyahay war ma ceeba war maan khaldanahay miyaan khaldanahay ilma adeeryaalow ma fahmaysaa guddoomiyaha gobolka uu fadhiyey nin baa isoo xasuusiyey guddoomiyaha gobolka uu fadhiyey fiiri ra-iisul wasaare uu fadhiyey xildhibaanaha fadhiyey wasiiraha fadhiyey markay saas igu samaynaysay laakiin kuma dambaabayo ma dhahayo khayrre ama maxaa la dhahay wasiirada meesha jooga way loog yihiin ma dhihi karo dee ma dhihi karo waa dulmi inaan dhaho hebel baa loogaa cidna lamayna ogeyna jaabkeeda hadday rabta ahayd ma anigu qof ma dulmiyo dee alla mee walaal ma oynayo laakiin xanaaqa iga timbato walaal ma oynayo laakiin cadhada iga tidabaatay dee iyo dulmiga islaantaas khadiijo deeriye anigu ciyaalo suuq maay nin khiyaaraanahay hadday iyadu ciyaalo suuqnimo iyo wax kale ula dhaqanto dee annagu anu ciyaalo suuqeynayaa aga habartan dee anigu maxay dhaantaa xasaanad umay leedahay anigana xasaanad baan leehay dee waa inaad qofka isku kalsoonaadaa anigu waan isku kalsoonahay ya laba tallaabay ma jirto hadda meesha lifeka uga jiro agtayday taagan tahay wallahana been idiin sheegin laba tallaabay ma jirto dee maxay qaadi kartaa waan uga soo baxay meesha waan uga soo baxay makhraati baa laga yahay anu haddaan dulmiyo makhraati baa laga yahay weliba hadda waan oomanahay waxyaabo badan oon qarnay way jirtaa videoyadana waan idiin soo dirayaa aniga imnoo ciyaalo suuq weligeyna qof ma ciilin qofna maana dhibin anigana ma jeclida qof inuu ciilo meel qof lagu ciilana kama imanin meel wax lagu ciilana weligey ma istaagin oo qof lagu maxaa dhahay lagu takoor lagu sameeyo anigu midda kale may dadka laga tirada badan yahay saas u ogaato ma rabo midda kale shakhsi wuxuu sameeyey inaan u gafo habartaas waxay ayada igu samaysa ma rabo inaan dadka iyada ka dhalato kale aan ugu gafo ma doonayo dee waayo ayada ay dulmid iyaga imayn dulmin moogtahay waxay tahayna waan ognahay anigu nacamleeye may weligana qof fiiri xataa tusaale ahaan waa la dhihi karaa cabdidhaanto anigu waan ku qanacsanaan lahaa haddii la dhihi lahaa cabdidhaanto waa nin mucaarada waa nin dawladda ku kacsan waa nin maxaa la dhahayay waa nin dawladda ku kacsan xataa hadday dhihi karto cabdidhaanto waxaan ugu diidayey waa nin dawladda ku kacsan ya hadday dhihi lahayd waan ogolaan lahaa ama maba imaadeen meesha ma aanan imaadeen war ilaahay amarkiisu badanaa maxaan ka soo dooni lahaa maxay iga qaadi kartaa hadda habartaas anigu waxba igama qaadi karto laakiin waxaan ilaalinayay xasaanadeeda wasiirnimadeeda xildhibaannimadeeda carwa kaase ha la yidhahdo cabdidhaanta waa beenaale waxaan diyaar u ahay xitaa xabsi anigu intaan lifeka ku jiroon xanaaqsanahay wax alla wixii gefa oo iga dhaca nin xanaaqsan baana wax kasoo qaad ma lahan soo maydaa garan ma wax kasoo qaad ma lahan laakiin waxaan ahay nin kumanaan dhalinyaraa ku xidhan yihin dad soomaaliyeed ku xidhan yihin oo la fiirsadaan hayniyo oo lagu xidhan yahay waxba kama baraya habartaas ma fahmaysaa lacagna uma baahni jaabkayga lagama weynaya lacag dollara shilin soomaali iska badaa dharkaas baan wataa qaaliga
gaarigaas oo wataa qaaliga maxaan uga baahanaa markaan u xaflad kaliya wadaniyadaas iyo Soomaalinimadaasaan meesha isu tagay anigu ya wasiiradii iyo la tali anigu waan u sheegay hal la gaarsiiyay xitaa fariintan Xasan Cali Khayre wuu joogay wuu yaqaana shakhsiyan wuu yaqaana waan la xiriiraa wuu og yahay way la fadhiday markay stage lagu soo dhaweynay wuu jiiday markay diidaysana maxaa la wuu jeeday ish ruuxan naga xanaajinayaan wuu arkayay anigu ma aqaan in beel la isku sheegayo in la is dulminayo dulmi iyo waxaas anigu meel la isku dulmin ma arkin maxaan uga baahanay anigu dawlad maxaan uga baahanay anigu waa shaqaystaa sababta dawladda yaana gaadhin habartaad maxaa la ciyaalo suuqada ay waxa sameynaysa maxay tahay maxaan ka leeyay ma kursi baan ku haystaa ma qabiil baan ku haystaa ma xilkeedaan ku haystaa ma xasaanadeedaan ku haystaa anigu waxba kuma haystaa anigu fanaan baan ahay talentigayga ummadda la wadaagaya talentigayga inaan dadka la qaybsado oon dadkaas uga qayb qaataan raba anigu wax kale ma doonayo taf bay ka yihiin meeshan way wada daawanayaan kulligood wasiirada iyo xildhibaanada way haw sheegaan arwakaas hala weydiiyo hadday tiraahdaa cabdi waxaas iga waxay hala soo weydiiyo hala soo ogaado ha wuu jeeday toosiyo walaal xanaaqaya dagaalka iga tira batay markaan xanaaqo wallahi billahi hatta canuftida ma liqi kare wallahi islaanta dulmiga anigu dulmi ma jeclidee weligeena meel wax lagu dulminayo ma istaagin in xataa qof la dulmina arki ma jecli maxay bal adiguba arrintaas ka jawaab anigu kumanaan malaayiin Soomaali baa igu xidhan maxaan ka bariyaa ii sheeg haddii laakiin dulmi iyo been la isu sheegay hana loo sheego been hana loo sheego wallaahi oo billaahi oo talaa aanan ka gabanaynin maxaa la dhahayay kama gabanayo baan ku uri weligay iyo Allahayna kamaanan gabanin kama gabanin anigu wax runa kamaanan gabanin cabsina kuma dhalan anigu anoo la cabsina ma dhalan dad la cabsiyana kama dhalan anigu oo been oo maxaa la dhahay la cabsiyo kama dhalan anigu hadday qabiil tagto weeyaan ma fahmaysaa habeenka madow baan soconaa ma fahamti laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay qarannimada Soomaalinimada anigu waxaan meesha u tagay kali waxa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan suugaanteeda la wadaago bas wax kale uma aanan tagin nin baana ii yeeray nimcaan hilaac baa ii yeeray arrinta mas'uulka habartan la hadal baan ku uri aniga iyada la hadlay qoladii kaameramanada iyo TV-yadu way wada joogan dhalinyarada Soomaaliyeed waa la iga helayaa dad way ii soo diri doonaan qof kasta oo daawanay dhalinyarada kamid ah ay soo tiray video iga haya markaan stage ka taaganaa bullshit aruuxan maxay ahaniyo laahi billahi weliga iyo Allah waxaan kala maan arag goorma laga tagay waxaas ya goorma laga tagay waxaas dadka in la kala sooco goorma laga tagay goorma anaga fanka xeer baan leenahay anaga fanaaniin haddaan u nahay ya xeerkaan leenahay wuxuu yahay fanaan hadduu meesha imaado in lagu casuumo barnaamijka laga qayb galayo xeer baan u leenahay anigu habartaas daba dhilif uma yihi hooyadood ha wasaan ayadii inta u shaqaysaba dee hooyadood ha wasaan Allah harkiinu ku yaala marka dhalin dadka Soomaali dadkan hadda live-kayga daawanaya dib baad ka arki doontaan waxay habartaas ku dhaqantay fiidiyoyadooda waa la hayaa kaameramanaa joogay TV-yaa joogay dhalinyaro badan baa joogtay dad kale la helayaa dee madaxda dhanna way joogan hala sheer gareeyo live-ka ra'iisul wasaaraha joogay laakiin ma garanayo inuu habartani dulminayso wax ka ogaa kuwa meesha jooga ma quraan bay akhrinayeen war aniga meeshan cidina igu imaan karta kowdhe ma fahamtay xidna waxba igama qaadi karta anigu waan ka tegay brother waan ka tegay waxaas habar Khadiijo kale mar horaan ka tegay anigu waxay dheerta ma la xasaanada ma dheertay bas
anigu xasaanadeeda wasiirnimadeeda xildhibaanadeeda waan ku ixtiraamayaa laakiin shakhsiyadeeda fogofdee waxba igama gelin aniga waxba igama gelin war ilaahay amarkiisa badanaa dadka qaar waxay soo qanay wasiiradda waa maamo war hadday maamata way dheli kartaa iyadaa la raba inay ga xishooto wiil yaroo dheli karto oo talent ilo fanaana marka inta masraxa ugu imaaday dhay orada iga deg ma ku taageersan tahay aniga afkayga u soo fiirinay daayada fiiriya aniga hay fiirna ayada dulmiga igu sameeyay fiiriya nimayo Soomaali waxa dhibaato gambinay waa dulmiga la isku fiirsanayo waligiin iyo alliin qofka hadlaydu soo fiirsan qofka dulmiga sameeyay ma fiirsan Soomaaliyay ma fiirsan waligiin iyo alliin dabeecadaas leediin dadka hadda meeshan wax ku soo qoray kulligood habartaas difaacayaan aniga oo dhalinyaro fanaan oo dhalinyaro talent leh islaantaas way iga lacag badan tahay bullet proof ay wata xasaanad bay leedahay iyada iga xoog badan ma fiirinaysaan ayada aniga maxaad iga fiirinaysaan in dhalinyaro miskiin ah inta diilada islaantaas way ka khaldan tahay wayna ku dulmiday hadda waxaad soo qoraysaan sidaas haddii qabiili wax la isku difaaca xagga askariga aniga qabiili difaac waan leeyahay Soomaalinimo hadda ku difaacaysan iyo fanada waa halkeeda ما فهمتين مركا حالك واسداس لا سودا anigu haddu maxaa dhahay aan oomanahay gaarigan biyo ima saarna oo man tacbaan lahay waayo intaas ay goon xanaaq darti ma fahmaysaa nin la dulmiyay baana nin la dulmiyay waslaan waayay la dulmiday ya ma fahamtay marka sidaas weeyaan xaaladdu dadka kale waad mahadsantahay suldaan waad mahadsantahay dad garabkayga ma weynayo anigu wiilal adiga dadka soo qoray wiilal war aniga wiilashooda iyadaba waxba igama galaan anigu yaan la soo wicin aniga wallahi oo billahi xasan cali khayr raxta soo wicin inaan diyaar ah inaan aslaanta gar la galo oo ilaahay og yahay wax badan oo waan qarinaya waxa ma sheegin anigu hadda laakiin waan daalanahay waxaan rabaa inaan guriga tago nasto ayaan doonayaa say wax u dhacaan idin la wadaago laakiin khadiija diiri waa dulmilay weeyaan waa cadeeso ma aha qof wanaagsan wallahi ma qof wanaagsan waa qof xun weeyaan oo aftahana laakiin afkeeda ma shawa beenalay afkeeda ma laysa dadka afkeeda ku gadataa anigu hadda ma rabo dawladda inaan siyaasadeeda galo oo wax ka sheega ma doonayo laakiin naagtaas waa dulmilay wayna dulmiday dulmigeedana xasan cali khayr maqraatibu ka uu fadhiyay wasiiradiisuna way fadhiyeen la taliyaashiisuna way fadhiyeen xildhibaanaduna way fadhiyeen ma idinahay hebel dadkii barnaamijkaas qaranka dhalinyarada loo qabanayay si haddii loo fiiriyo dhalinyarada qarankan kamid ahay oo speech kale si haddii loo dhigo weeyaan fanka markii laga soo tago ilaahay baan ku dhaarshay maana xaq u lahayn anigu waxa dhalinyarada kale xaq u leeyihiin macdaan baan ahay macdaan baan anigu maanan xaq u lahayn dhalinyarada waxa xaq u leeyihiin Soomaaliya runta ilaahay baa isku jecel runta sheega oo qofka gar la gartiisa siiya qof la dulmiyay waligiina ha bacsanina aniga soo fiirnin dhalinyarana way dhali kartaa meesha leedin waa hooyada oo kale balda fiiri ka fiiri aniga inay dhali karto wala fiirso iga awood badan tahay xasaanada ay leedahay xildhibaanada ay tahay xaggaas ka fiiriyano xaggaas ka fiiriya qof xusan ma fahamteen marka xaggaas ka fiiriya weligiin iyo alleen dulmiga horboodina dee waxaan anigu ahay aniga isku ah ma fahamti wax walboon ahayna aniga isku hadee kun iyo 600 bay daawanaysa live daawanaysa ya intaas daawataa dee waa cudud aan leeyahay xasaanada aniga aan leeyahay ka badan bay daawan jirta si hadii loo dhigana ma fahamteen marka waa anigu isku kalsoonahay
والله وبالله وتالله دد مسؤولين واحد يعني ددان صاحبنا هقلين لايف كاس اسكت anaga la hadlayne anigu sharafta aan raadinayo kama raadinayo Khadija Diiriyaan koori hooyaday haday la mid tahayna waan ku ixtiraamaya laakiin sharafta aan raadinayo waxaan ka raadinayaa ummadda Soomaaliyeed baan ka raadinayaa sharafta aan raadinayo laakiin kama raadinayo habartaas kama raadinayo mana rabade ayada ma doonayo كمر رادينيو شرفت عن رادينيو كمر رادينيو خديجة ديرية أنا شرف يقول في المشي وان كقيم قال وحي حوق يحنيو أو قرن لي هنا وان كوستاج ولقي يلا هنا فلنتير كاسم حكوس من جيرانو ما فهمتين حتى أنا سيدي وان كوس من الديار أنا قرن نمط أسكوس الشقايو حمان يوم محلها تكور أيضا يسميسي وقبل استاجا يوم محلها قرن نمط يوم محلها qarankayga waan sii wadanayaa dhaantada waad dhageysateen waa isxilqaan youtube-ka ku jirta dhageysta isxilqaan maxay ka hadlaysaa hadda dhaanta isxilqaan yaa hadda dhaanta isxilqaan ku qor youtube-ka wad arkaysaa dhaantadaas aan ugu talagalay anigu isxilqaanna ma ahayn inaan dad garaba ku taageerayo isxilqaan anu qof kasta oo jidka xataa nadiifiyo waa isxilqaan buu sameeyey anigu haddaan maanta gaadhigii intaan ka dego waddadaa nadiifo waan isxilqaamay taasaan suugaanteeda ku cabiroon rabay inaan uga qayb qaato wax kale ma rabin waxay diidayna taasay ahayd heesaa iyadoo hawlada waa bari u sameysay oo Xasan Cali Khayr lagu amaanayo baa meesha laga qaad guud arrin guud baan watay wax guud bay ka hadlaysaa tayadu oo permanentiya war ilaa haddii la sunna amlaynayo la ii sheegade haddii la sunna amlaynayo oo qofna amleeyaan meesha looga baahan yahay la ii sheego وارن قلد ويان dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobolada ka timid baa joogtay usoo wada timid dhalinyaro si hadii loo dhigo dhalinyaradaas kamid aha si hadii loo dhigo weeyaan maana nin u xiisa qaba mikrofon waad ogtiin nin stage inuu soo istaago lacagna kuma rabin anu lacag ma qaadanin de runta idin sheegaya waliba hawladu waa bariya nimcaan iyo lacag bay qaateen lacag bay qaateen laakiin anugu lacag ma aanan qaadan runta idin sheegaya dadkaas aan sheegaya tibi ka yihiin ma aanan qaadanin lacag ma fahantay xoogayga iyo xeeladayda iyo qarannimadayda aan rabay inaan ku shaqeeyo samada garan taas aanan ku imid haddana sidii qarannimadayda baan ku shaqeynayaa ma fahantay macaldal iyo diyada hadda laga soo maxaa la soo wacana aniga markii habartu ibaadilaysa nin walba warkay Xasan Cali Khayr arkay markii mikrofon ka taa fiiri markii hadlaysa taa ay khudbeynaysay waxa tir dadka marti sharafta fanaaniinta meesha jooga kamid yihiin kaltoon iyo Ishaq nakruumiya Cabdidhaanto kulligood wada salaamaya inta dulmida haddana ay maxay dhahay mikrofonka iga sheegay ma saxba bar dhafoorkayga fiiri saakan soo istaagay xafladaas uma baahnin lacag haday noqoto uma baahnin de dadka qaar baa hadda waxay dhahayaan xalahay taas waa lacag de dollar weeyaan lacag anigu ma baahni laakiin qarannimada waajibkayga qaran baan gudanayay saasaan u imid taasaan ku imid anigu nin lacag u baahan mihi wallahi qof kasta oo hadda Soomaaliyeed dadka dhalinyarada saaxiibada way yaqaanaan anigu laakiin waxaan caankooda nin walba ogyahay nin la dulminayo ma yahay anigu qofkii isku day Cabdidhaanto inuu dulmino hooyada ku wasaya wad ogtiin waxba igama qaadi karo Soomaaliya xaq Allah idin tuso wadin ducaaniya xaq Allah idin tuso ma fahamtay xaq Allah idin tuso waxa xaqaana ka dagaalama dulmigu wuxuu Ilaahay Soomaaliga dul qaadi lahayd xaq kama dagaalamaan de naag wasiirada oo xildhibaanada fanaan dhalinyaro oo talent leh u diiday inuu barnaamijkiisa ka qayb qaato oo ugu yaraan 10 saacadood taagnaa ayada la hadla aniga hay ku soo taagnaanina ayada ay dulmiday ما فهمتي عدي ayada nacamleeyo ana de عدي ayada iyo wixii wataba daana wasa waxba igama galan aniga
حشوت هدينا قطنا أدون كان أنكم محايا قال ما أنا ما قبل كقبا أوف محان dadka aad sheegaysan meesha way joogeen waan u sheegay waxaanan sheegin live kan kumaan sheegin wax walba waan sheegay Soomaaliya xaq u dagaalama Ilaahay ku dhaarshay aniga hadda anad soo wada fiirnaysan kala bad dadka qaar baa isu gar dhaanta xamar laga baano war xamar waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalada ummadda Soomaaliyeed qof kasta u siman fanaan kastana xaq buu leeyahay meeshu raba inuu tago waa magaalo Soomaaliyeed xamar dad waxa soo xamar dhaanta lagama baahno Khadiija ma markii koobaad haddii ayada la weydiiyo waa laga helayaa markii saddexaad way igu sameeyay sidaas ma la soo galay mid kamida sanad ee barba ka soo wareegatay wallahi waa markii saddexaad oo billahi oo tallahi waa markii saddexaad oo wasiirada Khadiija diiday wasiirada dhalinyarada isboortiga ay saas ugu sameeyso waa markii saddexaad ma fahamtay markii saddexaad weeyaan intaas oo dhan dhowr sano ka hor maxaan soo hadli waan live ku soo gali waay maxaan soo gali waay oo wax uga sheeg waay u dhii waay dulmigaas la igu sameeyay naftaada waxa jirto qaacida jirto mar waxa jirto qofka bini'aadamka naftiisa asaga uu dulminayo markaas waa goorme waa markii xaqaaga iyo maxal dhahayo dulmiga lagu sameeyo markaad ka dagaalami weydo Ilaahay baa ku caroonaya de waana dulmiga lagu sameeyay ka hadasha oo tira ma qaadan karo كودا حمر ومقالة الصوماليات مقالة قبيل معها ومقالة قرن مفهمسا أنا حتى مركي هذا كور عسكرت وإحنا نحمري ولا اسكت ديني قبيل لو بدل أرنت هذا وين ديدي والله وحن ديدي أنا وين ديدي وحن كور أرنت السيدة ذي نقداي الله يفضل بيون أرنمان وكلو هذا وين جوجي أيضا نسيدوكر وين جوجي مركز أصحابي أدنى ندين السلام يا وشرف بان ندين هيا لكن ظلمي كديدي ولا لا يالو ها قفل الظلمية ضد قفك الظلمية قفك واحد ظلمية لا هلا قفك الله ظلمية عفك كوسو تاجني ولقيني على ظلمي ما تفرستانه وحلد وسيرد وي وماما وكله أيضا يدلي كرتمي قحشاته ما حد ميكروفون أنا يسوق قفصنا wax walba wala arkay waa record way duubayeen ana hayade waxay ugu sameeynaysi marka ilaa la saxto waan duubay oo dhahay state kid waan duubay waan hayaa waan ku tusaya ana hayo waan soo dhigi doonaa halkan aan soo dhigi doonaa waan la wadaagi doonaa ma fahmaysa waan ogahay Khadiija diiriyan nimcaan way isku fiican yihiin ma fahmaysa dadkii meesha hadda uu jooga geeyay kamid ahayd أنا وصاحبك أصلا وحنا قبل حيان ولا التنمية صاحبي شرف أنا هيا لكن مخاطبك هذا وأنا السلام يا شو